dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku hanjabtay laba arin oo halis ku ah jiritaanka maamulka Puntland. waxaan idin la wadaagi doonaa laba qodob oo xasaasi ah oo ku jira warsaxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Puntland oo iyada qudheedu hanjabtay. soo dhawow daawade hadday tahay markaaga kugu horeysay aad soo booqato halkan subscribe noo saar noo like garay muuqaalkan waad ku mahadsantahay soo booqashadaada. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warsaxaafadeed ka soo saartay markabkii dhawaan u gacan galay maamulka Puntland isla markaana ku sugan xeebaha deegaanada maamulka Puntland gaar ahaan magaala xeebeedka Boosaaso. markabkaasi ayaa siyaabooyin kala duwan muddooyinkii ugu dambeeyay hadalhayn uga dhexdhaliyay baraha bulshada, waxaana siyaabooyin kala duwan laysula dhexmarayay cidda leh markabkaasi. dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay si toos ah u cilaamisay isla markaana ay u xaqiijisay in hubkaasi iyo markabkaasiba ay u soo socdeen gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. dowladda waddanka Turkiga ayaa la tilmaamayaa isla markaana warbixinta dowladda ka soo baxday lagu sheegay in markabkaasi ay iyadu leedahay. isla markaana waxaa loo waday xerada tababarka ciidanka ee Turkisom halkaasi oo la tilmaamayo in dowladda waddankaasi Turkigu ay doonaysay in sanadaasi iyo hubkaasi tirabeelka ay halkaasi ka dejiso. dowladda federaalka Soomaaliya ayaana warsaxaafadeedkeeda sidaasi ku sheegtay. Puntland waxa ay doonaysaa kaliya laba qodob in ay markaasi ku wajahdo guud ahaanba markabkaasi iyo waxyaabaha quseeya, in guud ahaanba ay la degto hubka iyo waxyaabaha saaran, sida haddaba warar qaar aynu helayno ay tilmaamayaan in guud ahaanba hubkii fududaa ay shacab balliqaysteen, halka sidoo kale wixii kale ee haraadiga ah ee hubee soo haray guud ahaanba Puntland iyadu ay la degtay, keliya ay ku soo hareen dabaabaad dagaal markabka halkaasi ku sugan. waxaa maangal ah in guud ahaanba hubkaasi ay si dhammaystirtaan. waxaa sidoo kalena maangal ah in Puntland ay ku eedeyso dowladda federaalka Soomaaliya inay maalgelinayso kooxaha argagixisada sida horeba ay u sheegtay. tani waxay u muuqanaysaa tallaabo culus iyo khilaaf hor leh oo soo kala dhexgeli karta dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo horaan isugu haystay maamulka SSC Khaatuma dhismihiisa oo ka soconaya gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. wajiyo kala duwan ayaa loo yeelay markabkaasi ku sugan xeebaha deegaanada Puntland gaar ahaan magaala xeebeedka Boosaaso, waxaana ka soo baxaya ilo kala duwan iyo sidoo kale warar kala duwan kuwaasi oo iyaguna tilmaamaya markabkaasi iyo sidoo kale in guud ahaanba lala degay hubkii iyo sanadii saaray. dowladda Turkigu dhankeeda weli warsaxaafadeed kama soo bixin, laakiin waxaa jira ilo hoose aynu helayno kuwaasi oo tilmaamaya in Turkiga uu soo diray markab dagaalkaasi oo ku sugan xeebaha Soomaaliya, waxaana maangal ah in hubkaasi iyo sidoo kale sanadii saarnaydba markabka ku sugan gudaha magaalada Boosaaso guud ahaanba dagaal lagu wajaho si ay u soo furtaan dowladda waddankaasi Turkiga. ila dhaxalgal ah oo villa Soomaaliya ka tirsanayaana sidaasi ku waramaya. waxaa jira xogo kale oo dhaxalgal ah kuwaas oo iyagana laga helaya markabkan in guud ahaanba dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynaysa inay qaado laba tallaabo kuwaas oo guud ahaanba ay ku doonaysa in markabkaasi lagu soo furto. dowladda Soomaaliya waxa ay ku eedeysay Puntland in guud ahaanba qaab burcadnimo ay u afduubatay markabkaasi isla markaana lagu hayo xeebaha deegaanada maamul goboleedka Puntland. waxayna noqonaysaa tallaabo culus iyo eedeymo loo jeedinayo maamulka Puntland kana imanaya dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxaana jiri kara Puntland in iyaduna sidoo kale ay weerarto dowladda dhexe isla markaana warsaxaafadeedkaasi ka duwan ay soo saarto. waxaana jira laba arrimood oo sidoo kale colaadda iyo khilaafka ka dhexoogan Puntland iyo dowladda dhexe dab ku sii shidi kara, kuwaasi oo ah in dowladdu ay si ambaqaado guud ahaanba qorshaha dhaleeceynteeda ku aadan in markabkaasi sifa burcadnimo ah dowladda Puntland ay u afduubatay. sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland horaan waxay isugu haysteen gudaha deegaanada SSC Khaatumo iyo dhismaha ka soconaya halkaasi gaar ahaan magaalada Dhahar oo ay ku sugan yihiin ciidamo deegaan ah oo abaabulan kuwaas oo ay maalgelinayso dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxaana wajiyo kala duwan yeelanaya khilaafka ka dhexaloosan dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka Puntland. dadka oo dorasa arrimaha siyaasadda ayaa siyaabooyin kala duwan maalmihii ugu dambeeyay u falanqeynayay markabkan iyo nooca uu yahay. 3 qodob ayaa lagu micneeyay markabkaasi iyo ujeedkiisa. waxaana lagu micneeyay in Imaaraadka Carabta uu ahaa qorsho isaga uu soo abaabulay isla markaana uu doonayay in Imaaraadka uu hubiyo sanad ciidan uga gacan geliyo maamulka Puntland. kuba kale ayaa qaba qorshe kale oo dowladdu ay damacsanayd oo ah
hub iyo saanad ciidan oo la doonayay in lagu weeraro maamulada Puntland iyo sidoo kale Somaliland oo iyagu ka kala arrimiyo qaybo ka mid ah Sanaag iyo sidoo kale Awdal. taasina waa tallaabo kale oo iyaguna ay sidoo kale la dheehan karo. waxaa kaloo jira qodob kale oo iyaduna la tuhunsan yahay in ganacsato ka tirsan kuwa Soomaaliya ay hubkaasi iyo sanadaasi ciidan soo rarteen isla markaana ay doonayeen suuqyada mugdiga ee gudaha Soomaaliya inay uga kala iibsadaan isla markaana waxaa maangal ah in laga iibiyo hubkaasi kooxaha argagixisada ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya. lama sooga xaaladda ka dhexaloosan Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya halka ay ku dambeyn doonto.